الله وبركاته مد سوماليات أرين مهم لها نشير قريرة سو فضل الفيديو عن شير قرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها معلم channel كسر دوادا أنا جمع عيقو أحمد هل كان غطانا ومعلم channel سايني شيء طبعا حقيقة برتين إنه أنت بدن إن نيسو قد بيو وحيابها عن سليه هاي وحن ووح وفي عن بالشدة وحان أركي runtii gabar Soomaaliyeed oo runtii kamid ah dadka magaca ku leh social media gaar ahaan TikTok ay gabadha caan ka tahay way soo hadashay waxay dhahday walaalayaal Soomaaliyeed codsi waayo wixii iga dhacay oo iga dhaceen waxaan rabaa in wixii hore oo iga dhacay Ilaahay uga toobad keenay wixii social media angle hadii ahaan TikTok hadii ahaan Snapchat hadii ahaan Facebook hadii ahaan YouTube dabcan waxaan ognahay inta badan qof bin aadan qalad uu ka dhacaa qaladkiisa uu dhacaa maqaldamo waa Ilaahay laakiin waxa aad wanaagsan qofka soo laabto ayaa runtii aad loo amaanay diinta oo runtii Ilaahay u toobad keeno ogaada qaladkii ku jiray inuu Ilaahay xasuusto oo runtii aakhiradiisa uu tiro wax aad u fiican markaas u fiirisid in loo garab istaagana wax fiican waxaan rabaa on gabadh ayada codsatay in videogeeda la faafiyo bulshada loo faafiyo loo gudbiyo si qof walba oo runtii ayada garanay uu gaaro ama qof walba oo runtii ku bartay magac xun inuu magaceeda fiican u barto ama waxaan ka wadaa runtii waji xun hada ku baratay waxay rabtaa hadda in waji fiican lagu barto umada ay runtii wixii xumaa ay soo gudin jirtay hadda kadib insha Allah waxaan rajeynaa in wax fiican ay soo gudin doonto gabadhan waxay codsatay in wixii ka dhacay ay ka toobad keentay ka soo laabatay Ilaahay soo xasuusatay oo wax Ilaahay loogu mahadceliyo qofka asoo nool xay ah dhalinyaro ah shabaab ah inuu Ilaahay soo xasuusto dib u soo laabto oo wax aad u wanaagsan runtii anagana waxa nala haboon oo markaas u fiirisid waajibna waa dhihi karaa in arintan aan runtii aan gabadhan garab ku siino gabadhan waa gabar runtii saaso aragteen dhalinyaro ah runtii waxaan u maleeyaa inay joogto dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa caasimadda dalka Kenya inay degan tahay Hooyo ama Nairobi inay runtii degan tahay laakiin aniga waxaan ku bartay inay Mombasa gabadhan ay inta badan ahayd ama xeebta Mombasa lagu bartay ama dhulka la dhaho Coast Province in inta badan wax ku tuwi jirtay anyway gabadhan magaceeda Samiro ama anyway naanaysa leedahay oo runtii aan jecel halkan aan ka sheego maadaama wixii ka soo laabatay naanaysa ma ku aqaanin laakiin qofka hadii uu naanays way baxdaa Soomaaliya waxay dhada magac ay masiibo maray ku baxaan laakiin qofka hadii uu ka toobad keeno wixii uu sameeyay jiray waxa fiican in magaciisa saxda loo yeero maadaama magaceeda saxda aan qaanin waxaan dhihi lahaa iga raali noqo markii waad Samiro iyo waxna magaceeda asoo ka bilaabo saxda ah saan rajeynaa laakiin message aan gudbinayo wuxuu yahay magaceeda inaa bartaan muhiim maaha dabcan muuqaalkeeda marka aragtaan ininka dhihi doono waa garanayna camal marka gabadhan message aan rabo inaan bulshada la wadaago waxa waayo runtii in gabadhan wixii ay ku jirtay ay ka soo baxday waxaan dhihi karaa wixii ku jirtay mugdi haddana Ilaahay ayaa iftiin u furay si ay noo sheegtay kolba nidida wax ku jira Allahu a'lam anaka wani hadalkeeda iyo ficilkeeda baan runtii taxgilinayna ixtiraamayna Ilaahayna waxa uu baryaa in runtii uu sida hadalkeeda ay ka dhawaajisay oo dhaweeyo ama run oo dhigo aysan wixii hore ku soo laabanin waayo waa gabar ceebtan runtii marka loo fiiriyo gabar iyo wiil inta badan gabadha u fudud marka gabadhan waxaan u maleynay in runtii ay ka go'an tahay laakiin hadii garab lagu siin waayo oo runtii wixii dadka ka codsatay laga caawin waayo waxaa moodaa in haddana shaydaan ayada uu jiro dabcan markay ku jirtay waxyaabo hadda ay sheegtay ka soo laabatay markay ku jirtay asxaab ay lahayd laga yaabo in asxaabteeda ay ku waaniyeen dheheen aniga waa ka soo baxnay ka soo bax in asxaabteeda ayada lambar u tahay oo asxaabdan soo raacdo laga yaabo in asxaabta kale ay weli ku jiraan marka saameyn way diri kartaa labada dhinac marka loo fiiriyo laakiin ayada iimaankeeda ay ku xiran tahay wax walba
waxaan rajayn doonaa in runtii bulshada maadaama wax ku barteen wixii ay hadda ka soo laabatay ayada naftada uma fiicno in bir haddana wixii lagu arko sharaf uma aha in arrintan ay ka go'on tahay ay serious ka tahay waxay soo duubtay clip yar oo soconayo muddo 30 seconds camal ku kooban 32 daqiiqo 30 iyo dhowr second camal ku kooban hal daqiiqeeda soo duubtay saan arkay ee ka codsanaysa bulshada in runtii wixii hore laga hayay laga tirtiro weji fiican oo cusubna laga gudbiyo ay codsanaysaa gabadhan walaashana waa gabadh dhalinyaro ah runtii joogta Mombasa ayay sheegay marka diinteena inta badan way amaantay dadka oo runtii qaladaadka galay ka soo laabto macnaha maqaldamo waa ilaahay runtii bini'aadan ku qaldama dhamaanteen wada qaldanaa laakiin waxa sharaf ah qofka asagoo xay ah dhalinyaro ah caafimaad qabo wiil shabaab ah inuu soo laabto ayaa wax ilaahay looga mahadiyaa inta badan way adag tahay in la helo ayaan dhihi karaa marka wax aad u wanaagsan laakiin waajibka anagana saaran waxay dadka daawanaya waajibka saaran wuxuu yahay in la dhageysto ayada way jiraan fanaaniin badan oo arrintan runtii fankii ka soo laabtay kaas u fiirisid qofka markii wixii hadduu dhibsaday ظروف walba ha jirto ama sabab walba ha jirto ama asxaab ha jirto ama waxa jirto uu galay laakiin uu ka soo laabtay marka ka soo laabto qofku waxa fiican in codsigiisa la aqbalo haddii la yeesan waayna runtii waa wax oo qofka kale dambi ku noqonayso waayo qofka waxaan iga daawo ku dhahay tusaale ahaan qofka haddii uu naanees hada gabadh naanees loo yeeri jiray naanees haddii codsatay dhaliga dhaafo wixii hore ka toobad keenay haddii wiil loo yeero qofku u yeeray waa ma fiicna waxa dambi ka soo gaarayo marka magaceeda sax ah loo yeero message ay soo gudbisana si adag ha loo qaato waxaan rajaynayaa in runtii gabdho kale oo runtii ay soo raaci doonaan ama wiilal kale soo raaci doonaan gabadh kelima ahaan way jiraan wiilal kale runtii ayaga naftooda oo sida macnaha oo u baahan in ay ka fikiraan waxay ku jiraan aalad tiktokan inta badan dadka way waashay runtii fasaadeeda badan waxa waalaan qofka waxa waayo shaydaan baa ku xiran asxaab kale oo fara badan baa runtii dhinaca ka jirto laakiin gabadhan waxaan dhihi karaa waxay tusaale u tahay asxaab fara badan daawan jirta maadaama qof magac kule tiktok tahay waxaan filayaa in dad badan ay ku xiran yihiin oo 100,000 kor u dhaafayo laakiin haddii ay soo laabato macnaheedu maaha qofkii shalay xumaan ku raacay inuu hadda ka baxayo dadka wanaag way jecel yihiin dadkeenan dad muslim aan nahay 100% muslim dad Soomaali nahay marka waxaa wanaagsan un in runtii qofka markuu ku dhaho wanaagan sameeyay igu taageer inaa ku taageerta fiican moogi in shalay xumaanta ku soo raacday 100,000 gaarsiisay maantana de in oo markay wanaag sameeyso waxa fiican in loo laba jibaaro si iimaankeedu u sii dago aan dhihi karaa waxaan rajaynayaa in runtii arrintan aan si adag u qaadan doono sifo faa'iido ku jirta waxay tahay dhowr faa'iido ku jirto runtii in qofka markuu waxaan ka soo baxo la taageero faa'iido koowaad waxay tahay in ayada iyo inta limidka ahayd ay runtii ka soo laabtaan waayo qof wuxuu arkaa okay shalay meeshan waxaan ugu jirtay waxa laga yaabaa in iska cadhi 100,000 ay haystay maanta ka soo laabatay 200 ay haysay 300 400 ay haysay milyan ay haysay tusaale ahaan haysay waxa laga yaabaa inuu inta ku fiican laakiin haddii oo 100 uu haystay konton laga sii jaro qofku wuxuu dhihi karaa dadku waxa kugu soo raacay xumaanta ay ahayd xumaanta si faafi camal message noocaas camal inaan tirtirno waa waajib runtii macnaha waa wax fiican oo anagana saaran in qof marka arid inuu wax fiican gudbinayo ku dhiirigelisid macnaha garab ku siisid sifa wixii uu laba jibaaro laakiin haddii oo wixii xumaa laga cararo aan dhaho wixii fiican laga cararo wixii xumaa loo cararo runtii waa aqoonsiman dhihi karaa marka gabadhan runtii aan dhageysano wax yar videogeeda oo soconayo wax ka yar 1 daqiiqo kadib ayaan isku soo laabanaa asxaabta la barkaatu mid Soomaaliyeed arin muhiim lahan in share gareeyo soo fadlan video aan share gareeya dadka tusiyo wanaagga faafiya wax kale ma aha aniga xumaatada dhan waa joojiyay maxaa la iswalaaqa surwaalka ku duuwayo xumaatada dhan inay xasuusinayaan kaliya marawi video dadka degsaday fadlan iska tirtiraan YouTube meel walba Facebook dad aan magacay u sameystay Instagram kulli waxa uu sheegay asxaabta dadkaas dhan report inuu qabo waa arkay mar comment la akhriyo dad badan dhahayo waa xariiqa ma aha dhabka ma aha laakiin ayada la rabo inay ka dhaweyso si hadalka asaga ah uu u baabao
anaka waajib saaran waxay tahay in wanaaga aan ku taageerno ayada inta lamidka ah sifo runtii ay arrintan ay usoo bado dadka wanaaga ay usoo aadaan waayo haddii oo qofku xumaanta sameynaya wax xun sameynayo oo runtii lagu taageero which means adigana runtii qeyba ka tahay xumaanta uu sameynaya waa ku taageeraysaa laakiin qofka hadduu wanaag sameynayo haddaa garab ku siisid wanaaggaas uu sameynaya adigana ajra kugu jiro inta qof uu sii gaarayana runtii ajra ugu jiro inta qofkaas uu xumaantaas uu runtii uu ka sii fogaanayana ajir kale kugu waayo wixii qofkii niyad uma helayo haddii uu isdhaho saini sheegay meeshan shalay waa ku jirtay okay waxaa samaysay waxaana samaysay laakiin intaa imaatay laba jibbaara samaysay oo fiican oo marka loo fiiriyo dhan positive ah qofkii uu fikiraa wixii uu ka go'aa saini sheegay asxaabta marka insha Allah wax walba anakeena ugu xiriyihiin walaasheen waxaan dhihi lahaa khayr Allah ku siiyo ilaahay runtii hanuunka ilaahay askale in runtii uu ilaahay waxaan rajeynayaa uu kugu sii wado wixii xumaan oo ka dhacayna runtii saa u toobad keentay ilaahay inuu ka dami dhaafo waayo toobadu ay furan tahay toobadu waxaa laba jeer ayay runtii ay furneen markay qoraxda ka soo baxda meesha kasoo bixi jirin meesha uu dhacis ka soo baxda iyo markay qofka naftiisa inta imaato labada jeer wixii kale oo runtii toobada inta kale ay furan tahay si diiniyan aan ku dhammaantan ku ognahay dhammaantan diinta wada naqaana runtii si loo fiiriyo dad muslimaana 100% marka gabadhan waqti fiican ay ku haboon tahay waqtigeeda ilaahay uu ku xisaabtami karo waayo qof markuu dhalinyar yahay shabaab yahay waqtigaas ilaahay caafimaad ku siiyey waqti ilaahay ku caawidi karto ilaahay ku siiyey lixaad ilaahay ku dhameystiray wuu ku xisaabtama ilaahay maalintii la qaam laakiin waqtiga ugu fiicnaa ayadoo shabaab ah dhalinyar ah ayaa waxaan dhihi karaa ay soo laabatay waa wax oo ilaahay loogu mahad celiyo waxaan rajeynayaa in inta badan oo kugu xiran runtii ay tusaale u noqon doonto laguna taageeri doono anakana insha Allah waan kugu taageeraynaa asxaabta hadday tahay markuu hore janalka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo saar